بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Axmed Maxamed Axmed Dictor Bana. kusoo dhawaada janaalkeena iyo barnaamijkeena cusub. sida hore idinkaga ballan qaadnay, janaalkan waxaan kusoo gudbin doonaa barnaamijyo caafimaad oo aan ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed iyo barnaamijyo kale oo cashiro oo aan ugu talagalnay ardayda Soomaaliyeed. insha Allah caawana waa maantana waa maalintii ama caawii aan ka hadli lahayn barnaamijka caafimaadka oo aan ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed. insha Allah maantana waxaan soo qaadan doonaa malaayga ama kalluunka faa'iidooyinka uu leeyahay. intaas ayaan ka hadlaynaa maanta, kalluunka ama malaayga faa'iidooyinka uu leeyahay. insha Allah ilaa iyo 5 qodob ayaan ka hadlaynaa. intaan guda galin qodobadeeda, marka hore wax yar aan ka dhaho malaayga ama kalluunka, qof walba sida uu yaqaano. sidaa wada ognahay, malaayga waa cunto aad iyo aad u leh caafimaad badan oo laga helo nafaqooyin kala duwan, hadday ahaan lahayd vitamin D-ga iyo proteins ayaa laga helaa malaayga. intaas oo isku wada ognahay, waxaa ka helnaa vitamin D iyo proteins, iyo sidoo kale waxaa jira maado kale oo laga helo malaayga oo aad iyo aad muhiim u ah, oo ah omega 3 fatty acid, kaasoo aad iyo aad muhiim uga ah jirkeena, ayuu aad iyo aad muhiim ugu yahay. intaas introductionkeena insha Allah. haddana waxaa bilaabaynaa qodobadeeni aan ka hadli doono 5 qodob. qodobka koowaad insha Allah wuxuu noqon doonaa oo aan ka helin oo ka mid ah faa'iidooyinka aan ka helno malaayga ayaa ah inuu malaayga uu fiican yahay malaayga maskaxda iyo jirka. malaayga wuxuu fiican yahay maskaxda iyo isha bini'aadamka. haddana waxaa gudu soo gelaynaa 5 qodob aan idinku sheegnay hordhaca. qodobkeena koowaad insha Allah maanta waan hadlaynaa. qodobka koowaad aan soo qaadanay waa inuu malaaygu u fiican yahay maskaxda iyo isha bini'aadamka ama indhaha. sidaa wada ognahay, malaaygu waxaa hore usoo sheegnay in laga helo in zaa'id uu ugu buuxo maadada la yiraahdo omega 3 fatty acid, kaasoo muhiim u ah, kaasoo ka caawiso maskaxda tissue-yada ama unugyada maskaxda ay leedahay, ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay. sidoo kale wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay dhinaca isha, khaasatan qaybta loo yaqaano retina. retina waa qayb ka mid ah isha. sidaa wada ognahay, isha wuxuu kala baxdaa ilaa 3: outer layer iyo middle layer iyo inner layer. saddexdaas waaye haddaa caadi ahaan u sheeg waa choroid, sclera, retina. saddexdaas waa qaybta ugu dambeysa retina. qaybtaas ayuu oo soo saarto isha bini'aadamka aragga, meesha lagu fahmo oo lagu tarjumo ayaa meeshaas retina waa qaybtaas ayuu aad iyo aad muhiim ugu yahay, ayuu caafimaad siiyaa. maskaxdana wuxuu caafimaad ka siiyaa tissue-yadeeda. taasi waxaana siiso caafimaadkaas maadada loo yaqaano omega 3 fatty acid. intaas waxaa ugu baxnay qodobkeeni koowaad. midka labaad oo aan galayno waxaa waaye qodob number 2 oo ah kansar. malaayga wuxuu ka hortagaa cudurka caanka ah oo dilaaga ah, kansarka loo yaqaano. kansarka waa sidaa wada ognahay, waa cudur aad iyo aad u xun oo macnaha qofkii badanaa ku dhaco oo aan badanaa daawo loo helin. allah naga haya. waxaa cilmi baaris rasmi ah waxay sheegaysaa in kansarka marka loo fiiriyo percentage aan 30 ilaa iyo 50 boqolkiiba waxaa yareeyo kansarka 50 ilaa boqolkiiba malaayga wuxuu yareeyaa kansarka. noocyada waa noocyo badan yihiin. qeybaha uu malaayga ka yareeyo ayaa waxaa ka mid ah midka hore oo ah oral cancer, oral cavity cancer. kansarka ku dhaca afka ayuu ka hortagaa malaayga, iyo kansarka ku dhaca esophagus hunguri mareenka, iyo kansarka colonka oo meelahaas mara ayuu ka hortagaa. sidoo kale breast cancerka, kansarka ku dhaca naasaha iyo wixii la mid ah, ayuu ka hortagaa malaayga. sidoo kale ovariga isigana kansarada ku dhaco ayuu ka hortagaa, iyo prostatiga isigana sidoo kale ayuu ka hortagaa kansar.
cuduradaas noocyadaas kala duwan ee kansarka ayuu ka hortagaa malayga, khaasatan maadada la yiraahdo omega 3 fatty acid oo malayga aad iyo aad rich uga ah ama ugu badan. qodobka saddexaad insha Allah waxaa asiina kaliya soo qaadan doonaa cardiovascular disease. Cardiovascular disease waa cudurka wadnaha, waa cudurka labaad ee ugu dhimashada badan dunidan aan ku noolnahay. marka la qiimeeyo waa cudurka labaad ee ugu dhimashada badan ee dadka badana ay ku dhintaan, waa cudurka wadnaha. cudurkaas sida idinku sheegnay waxaa asigana waxaa yareeyo oo qayb ka qaato in uu cudurkaas ka hortag u sameeyo waa malayga kalluunka. asigana aad iyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay, khaasatan cudurka wadnaha aan soo sheegnay. qodobkeeni kale insha Allah waxaa asigana kaligana oo waxyaalaha fiican ee ka hortaga uu leeyahay malayga oo ka mid ah diabetes ama sokorowga sida loo yaqaano. sokorowgaasina waa cudur aad iyo aad u xun, Allah naga haya. waa cudur aanan fiicneen, waa cudur halistiisa wato. asigana waxaa ka hortago ama uu helbi dadka cudurkaas qabo hadday u baahan yihiin macnaa daawooyin qaar markay qaataan malaygana asigana aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay cudurkaas. sidoo kale qodobkeeni kale waa depression ama niyad jabka. waxaa la sameeyey cilmi baaris oo ah qofkii cuna isbuuciiba mar, inta ugu yar isbuucii mar qofka cuna, qof isbuuc walba mar ka mid ah hadduu cuno malayga wuxuu yaraynayaa depressionka, niyad jabka qofkaas ku dhacayo. niyad jabka yaraanteeda ayaa ka qayb qaata malayga. midka qodobka ugu dambeeya oo shanaad insha Allah aan soo gunaanadeena barnaamijkeeni oo aan idinku talagalnay waa malayga waxaa zaid loogu helaa vitamin D. vitamin D-ga kaasoo excellent kuwa ama zaid loogu helo vitamin D-ga jirka ayuu zaid ugu baahan yahay. sidoo kale malayga waa isha laga helo vitamin D kaasoo aad iyo aad muhiim uga ah jirkeeni. asigana waa source ka mid ah sourceyada laga helo malayga oo ah vitamin D. qodobkeeni kale insha Allah waa malayga sidoo kale wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay hurdada. dadka hurdo la-aanta hayso hadday badsadaan cunida malayga macnaha ma arki doonaan hurdo yari inay ka cawaadaan ama inay ka dhib sheegtaan. malayga wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay sidoo kale hurdada. insha Allah caawa ama maanta waxay idin tahay barnaamijkeena intaan ayaan kusoo gabagabeyneynaa. waa ku mahadsantihiin la socodkiina. kusoo dhawaada janaalkeena Dr. Albana. maca salaama.